boqolaal qoysas Soomaaliya oo ka qaxay dagaalada ka socda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kuna silcsanaa xiriir qaxoonti oo ku yaala hareeraha magaaladaasi iyo meelo kamid ah koonfurta Soomaaliya ayaa bilaabay inay dib ugu soo noqdaan meelo kamid ah magaalada Muqdisho dadkaasi ayaa waxa ku kalifay inay soo noqdaan iyadoo aanay ilaa imika xaaladda magaaladaasi ee ammaan ku deganayn kadib markii ay roobab ama higaan ay ku heleen dhulkii ay deganaayeen faafahinta warkaasi daawadayaal waxa inoo haya wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black dadkii hore uga barakacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan guryahoodii kadib markii ay u dulqaadan waayeen roobab xooggan oo ka bilowday deegaanada ay ka barakaceen xaafadda KBB ee degmada Hodan ahna goobaha ay dadku sida aadka uga barakaceen ayaa imika kamid ah deegaanada ay dadku uga badan ay ku soo laabanayaan haweeney kamid ah qoysas tiro yar oo dib ugu soo laabtay xaafadda African Village ee degmada Hodan ayaa Raad TV u sharaxday sababta ay u soo laabteen maadaama ay wali socdaan rabshadihii ay hore uga barakaceen magaceedu waa Saciid Axmed waxaan deganay marka hore xaafadan kaas oo qaasatan African Village waa ka qaxnay haddana adiga duruufo jiro oo meelihii aan u qaxnay ka jira awooda baa iskaga soo laabanay ilaa 40 qoys aan nahay fiicda way jirtaa wali oo wada buqayaasha wada duqeeyay waxay ahayd alxamdulillah hadda waa iska caadi way jirtaa ilaahay ma hadla meel walba dhibaatada ay ka jirto